السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أرضيي ملك استجوبتان كسر دوادة 10 chapter كأني صدحات فيزيكسكا 10 كيسي أفراد هروح نقصه براني سيدا كورنتو الله دليو سيدا كورنتو الله دليو لو حوتشيو سيدا لوجو عن سيدا لوجو هذا كورنتو دلتي شهادة ده إيوه سيدا كورنتو دلتي شهادة لوجو بدله أنت عشان قيبيه هرا كسر براني هذا واحد دين سواء أرجني إن كورنتو الله دليو برلب يواير مدن ودقاقيو maxaa adduunku ka faa'iideeyay ku soo kordhisay casharkana maanta waxaan ku baran doonaa application of electromagnetic induction adeegsiga ay leedahay saaqid birlabdanabowga hadaba at the end of this lesson learners should be able to state the parties of simple DC and AC generators casharku markuu dhamaado ardayda waxaa laga rabaa inay awood u yeeshaan inay sheegaan qaybaha uu ka kooban yahay simple DC generator and AC generator danabdaliye quman iyo danabdaliye talantaali ah qaybaha baatiska uu ka kooban yahay ee ugu muhiimsan labo ardaydu inay sharaxi karaan explain how AC and DC work sida danabdaliyaha talantaaliga ah iyo danabdaliyaha qumani ay u shaqeeyaan sidoo kale ugu dambeyn ardaydu inay sameyn karaan to compare AC and DC generators inay isbarbar dhigi karaan danabdaliye talantaali ah iyo danabdaliye quman maxay iskaga mid ka yihiin maxay ku kala duwan yihiin okay aanu nimaadno casharka waxaan ku baran doonaa applicationka electromagnetic inductionka tusaalayaal baan u soo qaadan doonaa dhowr qodob oo applicationkadu ka mid yahay generatorka oo af Soomaali lagu dhaho danabdaliyaha labo microphone-ka oo ah kan gacanka amplifier-ka iyo bascule dynamo saddexdaasaan ku arki doonaa casharka koowaad qaybtiisa ee waxaan ku qaadan doonaa generatorkayna ku qaadan doonaa okay waa maxay marka generator danabdaliye maxaa laga wadaa generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy generatorku waxa weeyaan waa aalad ama qalab u bedela dhaqdhaqaaq ama tamar socod u bedela tamar darab u bedela generatorsku waxay ka kooban yihiin laba qaybood baa loo kala saaraa AC iyo waxa loo kala saaraa DC generator baa loo kala saaraa okay aan isdul taagno marka mid isu dul taagno AC gan ku horeynaa AC generator waa maxay muxuu ka kooban yahay sidee buu u shaqeeyaa saddexda qodob baan isdul taagi doonaa AC generator produces a current that changes direction this means it generates alternate current AC danabdaliye talantaali ah waa danabdaliye korontada ama danabka uu soo dhaliyaa ay tahay mid jihadeedu ay isbedbedesho oo loo yaqaan alternating current ama AC loo soo gaabiyo okay its main parts are shown below qaybihiisa ugu muhiimsan waxay kaaga muuqdaan sawirkaas fiiri wuxuu ka kooban yahay magnetic poles cirifya birlabeed the coil or iron armature sometimes waxa la yiraahdaa armature winding waxa Soomaali lagu dhahaa xurbiye iyo slip rings giraamo and brushes iyo burushiyo afarta qaybood buu ka kooban yahay birlabta xurbiyaha giraamaha iyo burushiyada okay intaas waa qaybaha ugu muhiimsan uu ka kooban yahay hadaba seeba u shaqeeyaa u fiirso how AC generator work qaabkeeba u shaqeeyaa when the armature winding rotates inside the magnetic poles it cuts the magnetic field lines and EMF is induced marka xurbiyuhu uu ku dhex socdo oo dhex wareego badad barlabeedka waxa lagu saaqaa koronta lagu saaqaa xoog danabwada lagu saaqaa okay when coil is passing through the vertical position coilku markay vertical perpendicular positionka marka ay ka gudbayso xurbiyuhu uu ka gudbaayo it changes direction of rotation coilku waxay bedelaysaa jihada ay u soconaysay wareegeedii qaabkii wareegu jihadu u soo socday baa motionkii isbedelaya this causes arintaasina waxay sababaysaa the induced current to change its direction for every half of cycle danab hayaanka talantaaliga ee meesha lagu saaqay inuu jihadiisa bedelo bar wareeg kasta goobadu markay kala bar soo wareegto mar kasta oo goobadu ay kala bar soo wareegto in current-ga jihadeeda ay bedelto
korontadaas marka waxaa loo yaqaanaa AC current or alternating current. The frequency of AC supply is 50 hertz. Rakaadka danabdhaliyaha talantaaliga ah waxa la dhahaa waa 50 hertz. rakaadkiisu waa hertz waa S unit-ka frequency-ga hertz waa maxay waxa laga wadaa 50 hertz macnaheeda the armature winding makes 50 complete cycles per second. xurbiyuhu wuxuu sameeyaa konton wareeg oo dhammaystiran halkii ilbiriqsiba. taasaa marka waxaa la yiraahdaa waa rakaadka danabdhaliyaha talantaaliga ah. Okay, haddaba the ends of the coil are fixed to slip rings which rotate with the coil. sida kaaga muuqata sawirka meesha ay coilku dhinac dhamaadka xurbiyaha waxa ku dhagan 2 graamood baa ku dhagan oo wareegsan sidii farantigii oo kale ah baa ku dhagan. Okay, the carbon brushes rub against the slip rings and connected to the external circuit. burushyaduna waxay isku xiraan giraamaha iyo mareegta banaanka isku xiraan. iyagu kuma samaysna meesha laakiin way taabanayaan ay. saa darteed giraamuhu coilkii lagu xurbiyaha la wareegayaan laakiin brushesku waa fixed meeshooda ka dhaqaaqi maayaan. Okay, haddaba waxaanu niri coilku markay jihada bedesho ayaa korontadu isbedelaysaa. seebay isu bedelaysaa? sawirka aad ugu fiirsada. Okay, okay, kani waa north pole of a bar magnet. kana it is the south pole of the bar magnet. haddaba markay coilkii tan tahay coilka dhinac dhamaadkeeda waxaa ku xiran 2 slip rings 2 graamood baa ku xiran. Okay, sii soco. grantikooda waa tan tii labaadna slip ringska waa tan. Okay, halkan tan waxaa kaga xidhan carbon brusheskii. Okay, tanna halkan waxaa kaga xidhan another carbon brusheskii. carbon brushesku waxay ku xidhan yihiin mareegta banaanka. kani waa saacaddii galvanometerka inoo sheegaysay jihada korontada ay u soconayso. haddaba halkaa u fiirso waxaanu niriday magnetic field-ka saynu xiisadii hore kusoo sheegnay jihadiisu waa from north pole to south pole. had iyo jeer barlabeedku waxay ka tagaan dhanka north pole-ka oo waxa jihadoodu tahay dhanka south pole-ka. sidaynu sidoo kale aynu soo sheegnay jihad marka xurbiyahaasi uu barlabeedka ku dhex dhaqaaqo jihada korontadu ay u raacayso waayarka waxaa lagu helaa Fleming's right hand rule. gacantani fartani waxay gacanta midig ee Fleming's baynu oran jirnay. farta murdisada waxay inoo sheegi jirtay directionka magnetic field-ka had iyo jeerna waa from north pole to south pole. fartan ama farsuulkuna wuxuu inoo sheegayaa direction of the motion meesha conductorku uu barlabeedka u dhaqaaqay. farta saddexaad oo inoo soo hadhaana waxay inoo sheegaysaa direction of inducer current to the conductor inside the magnetic field. halkaa marka u fiirso haddii aan saddexdaa faroodba perpendicular iskaga dhigo magnetic field-ku waa from north pole to south pole. coilka dhinaca kan haddaan ula baxo AB dhinacan haddaan ula baxo AB dhanka AB waa out of the page hadday u wareegayso clockwise dhanka clockwise dhanka saacadda hadday u wareegayso. marka tusaale ahaan dhanka kan AB aan u bixinay kor buu u soo kacaya kana hoos buu u sii socdaa. kan waa out of the page kana waxa weeyaan into the page. midna waa wuxuu ka imanayaa bogga buugga midna wuxuu sii gelayaa bogga buugga. marka farta waa inaan dhankan u jeediyaa out of the page. theory current-ga marka xagee u socotaa from north to south the direction of motion direction of inducer current. korontadu danab hayaanku wuxuu u raacayaa dhanka kan maadaama hoos u sii socdo farsuulkii waxaan u jeedinayaa into the page. fartani hoos ba u jeedaa kana korontadu xaggan ay u soo raacaysaa soo raac korontadii. Okay, saacadda galvanometerka. Okay, marka galvanometerku waxay u dhaqaaqaysaa saacadiisu to the right side
waxaanu coilkaasi marka ay tahay half of a cycle markay soo wareegto it changes the direction of rotation so that the inducer current also changes direction danab hayaanka meesha lagu saaqayna korontada waa isbedelaysaa jihadiisu oo fiirso coilkii markay soo wareegto haddii dhankani markii hore ahaa ileen maadaama ay saa u wareegayso dhankan markii hore inoo ahaa DC aynu la baxnay markan xaggan u soo wareegay DC dhankan markii hore inoo ahaa AB na xaggan buu u wareegay dhankan bay u wareegtay okay u fiirso haddaba haddii split ringiskii kan uu yahay kii koowaad okay carbon brusheskiisii waa sidiisii waa yahay dhankan gaaban baa marka wuxuu soo wareegay xaggan kii kale okay the second split ringiskiina waa kan waa yahay halkaa eeg isbeddelka dhacay saacaddii galvanometerka wataas waxaan rabaa coilkii markay half of rotation ay samaysay direction of inducer currentigii maxaa ku dhacay mar labaad fiiri haddii xaggani aynoo ahayd north pole dhankana birlabta south poleka cidhifkeeda waqooyi aynoo ahayd koonfureed aynoo ahayd mar labaad sidii samay hadda dhanka kani mar kasta waxa weeyaan waa out of the page kana waa maxay waa into the page fiiri mar labaad eeg currentigii dhankan waxay u raacaysaa kor dhankana waxay u raacaysaa hoos oo saanu noqonayaa fiiri haddaba dhanka AB markuu xagga joogay korontigu waxay u socotay eeg kor laakiin AB markuu xagga u soo wareegay xaggay current u socotaa hoos halka maxaa kaaga muuqda jihadii direction inducer currentigii markii coilkii ay iskala wareegii jihadii motionka ay bedeshay korontadiina jihadeedii waa isbedeshay fiiri marka kan soo raac korontadii xaggan bay ka soo gashay xagganay ka baxaysaa saacadda galvanometerku waxay u qalloocsanaysaa dhanka korontadu ay u qulqulayso okay markan waa left side waayo xagganay ka soo gashay korontadii u fiirso xaggan waa ka sii socotaa okay halkaasaa marka waxaan leenahay generatorka nooca korontada ah dhaliya ee korontadiisu ay jihadiisa isbedbedesho oo loo yaqaano alternate current ama danab hayaan talantaali ah baa waxaa loo yaqaanaa AC generator carbon brushesku iyagu waxay ku taabanayaan kuma samaysna laakiin waa taabanayaan garaamahay taabanayaan waxayna isku xidhayaan xurbiyaha iyo mareegta bannaanka isku xidhayaanay saa darteed waxaad ka aragtaa korontada tan jihadeedii inay bedbedelayso kaasaa waxaa loo yaqaanaa AC generator balaan isla aragno tijaabada saa darteed baa waxaa loogu yaqaanaa alternating current waayahay haddaba DC generator danab dhaliyo quman isagana waxaan sheegi doonaa waa maxay DC generator qaybaha uu ka kooban yahay waa maxaa ugu muhiimsan sidee buu u shaqeeyaa okay sidoo kale waxaan arkaynaa DC generatorku waa maxay qaybaha ugu muhiimsan uu ka kooban yahay waa maxay sidee buu isaguna u shaqeeyaa maxay ku kala duwan yihiin markaa AC iyo DC haddaan DC-na aan sharaxno DC generator waxaa la yidhaahdaa a generator produces direct current waa danab dhaliyo quman kaasoo soo saara danab hayaan quman oo jihadeedu aanay isbedbedelin sidaad ka aragtay sawirka iyaduna wuxuu ka kooban yahay sidii kii hore oo kale magnetic poles brushes laakiin iron armature wayarkii dubnaa xurbiyihii birlabihii iyo burushyadii keliya wuxuu kaga duwan yahay meeshan split rings weeyaan ee kii hore wuxuu ahaa rings kana waa maxay waa half gramo halkaa keliya kaga duwan yahay halkaasaa marka shaqada kala duwaysa meeshaasaa shaqada kala duwaysa
seebuu marka u shaqeeyaa how DC generator works u fiirso when coil rotates inside magnetic poles marka xurbiyuhu uu dhex wareego badad birlabeedka it cuts the magnetic field lines wuxuu jarayaa badad birlabeedka ka tegaya from north pole to south pole buu jarayaa so an EMF is induced waxaana lagu saaqayaa darab hayaan baa lagu saaqayaa okay haddaba the split rings or commutator waa isku mid reverses connections for every half of cycle wuxuu isku xidhanka kala bedelaa coilku markay halves kala bar wareeg ay samaysaba mar kastoo coilku ay wareeg barkii samaysaba waxaa iskala bedela labada split ringska iskala bedela ama commutatorka loo yaqaano arrintaasi marka waxay u ogolaataa allowing the current to flow in only one direction in the external circuit taasoo mareegta bannaanka u ogolaanaysa had iyo jeer inay hal jiha u socoto taasaa marka eeg commutatorka iskala bedelay oo kana xagga yimi kana xagga u wareegay baa wuxuu ku ilaaliyey korontada mareegta bannaanka raacaysa inay hal jiha u socoto kaasaa waxaa loo yaqaanaa danab dhaliye quman annagoo isticmaalayna filmkiis red hand rule aan aragno bal siday korontada directionkeedu ay u tahay mid aan isbedelayn eeg xaggan dhanka kan haddaan coilka aan kala calaamadiyo oo aan la baxo tusaale ahaan dhankan aan sidii tii hore kala baxo AB kan aan la baxo CD dhankan AB waa out of the page waxay u wareegaysaa ka soo qaad clockwise dhankan CD na waa into the page weeyaan haddaba fiiri inagoo isticmaalayna gacantii day fata magnetic field from N to S motionkii upwards ah dhankan AB korontadu waxay u raacaysaa kor dhankan kale fiiri maadaama ay saa u socoto kani hoos buu sii socdaa dhankaas CD farsuulku marka wuxuu noqonayaa marakan hoos fartan xagee u jeedaa hoos currentku xagee u raacaysaa hoos brusheska eeg xagganay korontadu ka soo galaysaa okay saacaddu waxay u qalloocsanaysaa dhanka korontadu ay u socoto okay markay coilkaasi ay soo samayso half of the cycle ay soo wareegto eeg waxa iskala bedelayo oo istaba maraya giraamihii baa istaba maraya labadii giraamood okay xaggan waxaa imanaysa eeg markii hore tan buluuga ah baa xagga joogtay tan madowga ah baa xaggan tegaysa marka labaad fiiriday okay two split rings kii buluuga ahaana ilan coilka waa wareegtay xaggan buu u wareegay okay carbon brusheskii marka waa kan kii kalena waa kan okay needle of the galvanometer kii waa tan dhanka waa eeg dhankii AB xaggan u wareegay dhankii CD na xagga kan u soo wareegay inagoo isticmaalna filmingis red hand rule u fiirso waxaan leenahay day dhanka kan theory out of the page currentku xagee u raacaysaa kor bay u raacaysaa kana theory farsuulku waa into the page from N to S xaggan baa north pole-kii ah xaggana waa south pole-kii eeg currentku hoos bay u raacaysaa mareegta bannaanka theory xagganay ka soo galaysaa eeg korontadii weli waxay u socotaa inkastoo coilku ay jihada bedeshay laakiin korontadu mareegta bannaanka waxay u socotaa dhankay markii hore u socotay arrinta noocaasa waxaa loo yaqaanaa direct current ama DC aan isla aragno iyadana tijaabada aan isla aragno thank you very much eeg haddaba waxaynu ardhiganay AC iyo DC maxay kala yihiin maxay kala duwan yihiin eeg fiiri AC generator produces alternating current while DC generator generates direct current waa iskaga mid soo ma aragtid magnetic poleskana waa iskaga mid laakiin maxay kala duwan yihiin AC-gu wuxuu dhaliyay danab hayaan talantaali ah DC-guna muxuu dhaliyay danab hayaan quman qodobka labaad AC has slip rings wuxuu leeyahay giraamo while DC has split rings or commutator wuxuu leeyahay bartaasi ku kala duwan yihiin mid uu giraamo leeyahay midna muxuu leeyahay bargiraamo marka DC-ga bargiraamuhu markay iskala bedelaan day current-ga bannaanka waxay ku ilaalinayaan inay hal jiha u socoto halkaa waxaan kala fahanay DC iyo AC generator maxay kala yihiin sabab u shaqeeyaan su'aalaha aan isla aragno okay
thank you very much waxaan idin rajaynayaa khayr waxaan rajaynayaa inaad kala fahanteen AC iyo DC waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo sida ay kala yihiin iyo sida u kala shaqeeyaan waad mahadsantihiin